in ka badan 94 milyan 94 kun oo dollar ilaahdee oo dollarka Mareykanka sawir ku sheegay ama sida ila xogaan ay xaqiijiyeen ay Shusha Cabdalla contract kula saxatay shirkadda SPI gaar ahaan qaybta lis ee caanaha lis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد سداوي ملك الدنيا دافد كجوكتان ومركز المقال سب سؤال صاحب يال ملك كوريسين سومرتان تاي وحنا كعصنيا مقالك إن الله يثارتان بوجين فيسبوك عبد الرسام محمد دتكو عصبتنا إن تسوف لو كريسو أجد بدل ما هسنت سحب وكم هسنت كنا شنو سوبر تاكينا هذا هو جوكتو عن عصام تضع عصبتنا عن خلاي بفضل مقال كيكا لايك حلا دافين هذا لايك لا دافتو أديك يكون طالع وأديك يولاد كلا جوكو إيسا مركا waxa codsanaya muuqaalkan maanta inuu gaaro 1000 like 2000 like 3000 like oo YouTube iyo 10000 oo like Facebook page wayahay horta ugu horantii waxa la ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khair milk soo dumida daafida ka joogta saaxiibayaal waxa la ciid ilaahay ku bashbash iyo barwaaqo ku gaarsiiyo Allah iriga dhigo markii inta laga yimaado waxaan doonayaa inaan ka hadlo ina walaashina oo magaalada Hargeysa ku sugan oo magaalada Hargeysa joogta iyo arrimaheeda jacayl maxaa ka jira sawirkan oo baraha bulshada si aad loo wareejinayay iyo kontraadka shirkadda SPI aan ugu arko anoo reer Hargeysa oo Soomaaliyeed san ugu arko ayaan doonay saaxiibayaal ka hadlo ugu horantii Shusha Cabdalla waa in dhalinyaro joogta magaalada Hargeysa sidoo ogsoontiin lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa muuqaaladeeda iyo si loo soo dhaweeyay aad ogsooniyeen xaflad baybayo aad u cajiba magaalada loo qabtay markay si tagaysay jigjigana oo boqorkii dhaantay Axmed Budul uu ku soo dhaweeyay oo halka dhaanto ajiiba ugu tumay hadaba iyadoo intaas soo dhimi jirta daawadayaal ayaa su'aasha isweydiinta badan waxa ay tahay oo anigii adigu isweydiinayno hore waxa uu sheegtay Shusha Cabdalla magaalada Hargeysa inay u timi kontraad heshiis ay shirkad reer Soomaaliland kontraad la gashay kama xumi horta oo in walaashin oo dhalinyaro oo horumar sameynaysa waa boonka koowaad boontiga labaad arka jacaylka ee baraha bulshada la soo galiyay ayaan doonayay isagana saaxiibayaal inaan dareenkayga aragtida aan ka qaato horta wiilka dhalinyarada la sawiran sawirkiisana hore u soo sheegnay hore u soo aragnay waxa weeyaan wiil dhalinyaro oo baraha bulshada hadda caanka ah waqti xadirkan ay joogo caanka ah ee dhalinyarada reerkiisa magaranaysa si aad kale oo ka yaqaan kamida waqtiga imika iyo horeystaba oo dadka magaranaysa baraha bulshada si aad yaad ka uga sacanka gaar ahaan meel xafladaha lagu qabto xamsarada wal baraha bulshada laga yaqaan oo reeri hadaba iyadoo intaas jirto arka jacaylkooda iyo maxaa ka jira waa su'aal anigii adigu aan isweydiinayno waa su'aal isweydiin oo anigii adigu aan in isweydiina ay jawaabteeda tahay Soomaha in ka badan 94 milyan 94 kun oo dollar ilaahdee oo dollarka Mareykanka sawir ku sheegay ama sida ila xogaan ay xaqiijiyeen ay Shusha Cabdalla contract kula saxatay shirkadda SPI gaar ahaan qaybta lis ee caanaha lis horta anigu waa ku faraxsanahay in shirkadaha Soomaaliland inay horumar sameeyaan oo dadka baraha bulshada ku jira dhalinyarada ay soo dhaweeyaan oo magaranayay ay haysiinayaan kama xumi aad baan ku faraxsanahay laakiin hal mid baan dhaliilsanahay halka mid aan dhaliilsanahay waxa weeye kulli reer Soomaaliland gaar ahaan reer Hargeysa ma aha dad social activity aad si badan priority-ga siiya waxa weeyaan dad intooda badan magaranaysa waxyaabo kale iskaga mashquulsan oo aan magaranaysa intooda badan aan ku faan ama aan si aad ka waqti u siin social media waxaad ka dareemaysaa dhalinyarada reer Soomaaliland hal qof ayaa u malayno aalada social media hal milyan ka gaadhay dadka si shakhsiga oo isticmaala dhalinyarada oo baraha bulshada TikTok caanka xamse yar la yiraahdo ayaa hal milyan gaadhay waa sababta kalifi kartaa ma cadeyn kartaa reer Soomaaliland inay yihiin dad ku yar social media maro dadku hadda dadka social media ku yarna waa dadka adduunka loogu horumarsan yahay waxa jirta maanta in joogno jiilka cusub loo yaqaan 5G in adduunka maanta marayno waa adduunka magaranaysa oo meel sare social media ka marayo gaar ahaan magaranaysa isticmaalistiisa ay dhalinyaro isticmaalayaan waxaan wada ogsoonahay Soomaaliland boqolkiiba 75 yahay dhalinyaro inta kala soo hadhan yihiin dad waayeela waliba dadka waayeelka ayaguna intooda ugu badani waa dad social media isticmaala hadda reer Soomaaliland ma ku jiraanshahay ku yar yihiin ayaa sababay in dhalinyar looga yeero magaalada Muqdisho kadibna xaysiimo la siiyo oo lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa oo shirkado lacag inta leeg oo aan filayo ama aan ogsoonahay in magaranaysa ay dadka reer Soomaaliland in badan oo abaaraysan iyo in badan oo baahaysan ay u baahan yihiin in lagu sponsor gareeyo caano ama magaranaysa xaysis lagu bixiyo
oo hal shaqsi la siiyo inta in leeg adduunka inta ka badan baa la qaataa oo ogsoonahay ciyaartoydan daawanaa dad magaras artist daawanaa dad magaras ay wariyaalan daawanaa adana wax doonaan hadal haysis taak badan qaataan waa ku hambaliyeen waa ku soo dhaweeyeen balse laakiin su'aasha isweydiinta badan waxay tahay SPI Coca-Cola maxaa sababay dadkooda baahida inta leeg iyadoo ay hayso ogsoonahay wadanka sixir badan ku jiro ogsoonahay wadanka inay abaar ka jiraan ogsoonahay wadanka in magaras ay tamariin ka jirto in inta lagu haysta hal shakhsi inta wadanka loo geero in magaalada Hargeysa magaalada inta lagu soo dhaweeyo inta lagu kontraad la siiyo dhalinyaro saas oo kala ama barnaamijyo ku jirta waxa ogsoonahay hal qof oo ka soo jeeda Soomaaliland ama hal qof oo ka soo jeeda halkan aan joogno hadii uu ahaan lahaa lacagta inta laga soo galay dad badan buu wax gaarsiin lahaa balse laakiin su'aasha isweydiinta badan haween maxaa sababay ma dadka reer Soomaaliland iyagu qaar iyagu sida go'o isla daadiga mise iyaga qaar social media ka dambeeya in social media ka dambeeya ku cadeynaysa in ka badan 4 sano ku dhawaad social media ku jirnaa ma arkaysi supporters aynkaas oo saus badan ma arki kartid adigu dhaado Soomaa 6 hadaba waxa jiray widan yaro isaguna baraha bulshada caanka oo ka baalalaydo Mareykan jooga hadaan qaldanayn oo si aad baraha bulshada lagu xaraabeysanayay oo isagana magaran saar lahaa gabadhan ay jecel yahay laakiin laga qaaday hadaba su'aasha kale isweydiinta badan waxay tahay daawada ninkii ka hadlay isagana inantii ma laga sii qaado ma ninka kale dad jacayl saaxiibkeena ayaa intii la wareegay taasina waa su'aal isweydiin badan ma jacayl cusub baa isagu sameeyay garan si kastee hadaba saaxiibayaal kula social media waa iska kaftan intii soo badan waa lagu kaftamaa inaguna waxay ka mid ahay dadka la kaftamaya magaranaysa muuqaalada soo qaata ee hadba waxyaabaha social media ugu hadal inta badan la ka hadla aynu nahay markaas si kastee hadaba inta walaasheena anigu horumarkeeda iyo nolosheeda yaa laga dhigin oo commentiga lagu soo bixin nolosheeda iyo horumarkeeda aad ka xun tahay maxaad u gaari weydii waa gaari anigu wax weyn ma ha soo meedan karan aad iyo aad kaliya lab saaxiibayaal aad ma asantiin wax rajinaya in badan waqti hore ay isugu keenbisay halkan imkaan ka soo hadlayo oo ka soo muuqdo ama ana qolkayga hore wax ku duubaya waqti hore ay isugu keenbisay markaas waxa tiraadaa bil aad iswaayay waqti baa kala geeyay soo meedan karan dadku haday iswaayaan oo sidoo hore isku haawayaan waqti baa kala geeyay marka si kasta haataba waxaan filayaa hadeeto inay nahay dad wada joogo meel kala jirin oo marba iska agdhow inay noqon doona insha Allah billahi karim wixii ka dambeeya waqti xaadirkan ka dambeeya ma garatay idinkuna xarjiniya muuqaaladayda inaad like saartaan igu dhiirigelisaan comment ka soo bixisaan qurux badan igu dhiirigelisaan in more followers ay helaan oo garatay soo baxa si kasta haataba saaxiibayaal muuqaalka xinta kumid waxaad ka tagayaa ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khair ha ilaawin oo eegay ha iska bixin adigu aan muuqaalka like saarin boggeena Facebook Cabdirasaaq Maxamed follow aan soo oray YouTube-kiina aan subscribe saarin war bay baad leeyahay saaxiibayaal muuqaalka xigeenka kumid waxaad ka tagayaa mac salaama